إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعدي وحي إلا أوران لها والا يلي سيدا الشيء وحراد وكل شيء وانا لداهي سلادينا وشوكتاه هداي وعدي تاي هداي وانا تاي برقي يقهري بايلي لما صدح بضابا يرير أيام كسو كوبيا مد وهنبليو عيدة ذكرى إن لهي نقارسي أيام كبعين يا إلهي كبرين أنت مسلمين تأردن الصومالي ده قارهان غير بودلاند وحن لهي عيد وناكسن هنبليو إلهينا وحن رجينا إنه يقارسي سنة كيس إنه بش يبروغا كعيد وحي دعاها علماء التلي قضب كلابات ونمعضة لقسو شيكي وإلهي نسيي ويكوه الرئيسي دباتو إيا أبار تاس كسب كذا وحكاها لي رقبنا ويكوه الرئيسي ووسيرك عدالة وقدم بيي أيا كهد لي تا إيضا واحد مدى وحاينو كسبنا إناي تاي إلهينا ويناقا دافي كرا وحاي إلهينا وقدم بيسيين نمعادي نسكان بيالتي الحمد لله رب العالمين وحاي دباتوين كينا قاري مد نفي مال بله أيه هيد سيدي لشاقي وانو دولدو ودا هawsheedii inta ku dhimatay waxaan u tacsiibaan u direynaa oo tacsiinina samiriya iimaan ilaahay ka siiyo dadka ay ka tageen gurmadna waa inooga baahan yihiin kulligeenba xagga wadooyinka waad la socotaan sidii culimada iyo cid walba iga horeysay ay u sheegtay wadooyinku waa kala xidhan yihiin maanta Soomaaliya ama Puntland way kala xidhan tahay waxaynu ku dadaalayna inaynu si degdega uga qabanno hawshii iyada ahayd dawladdu waa ku jirtaa guddi baa loo saaray waxaanu aan codsanayaa ogeysiinayaa culimada sidii kaalintii ay ka qaadan jireen sidii Sheekh Daahir u sheegayay waliba Sheekh Maxamuud iyo raggii halkan aan guddida wada ahaan jirnay runtii guddida aanu samaynay way ka mid yihiin inay iyana hawshii ay lagu yiqiin abaaraha lahayd buunda hore gooday lahayd oo gurmad lahayd culimadiina iyana sidii loo sheegay waxaan ka doonaynaa inay kaalintoodii ka qaataan qodobka aan ku soo gabagabaynayo waxaa weeye xagga nabadgelyada iyo hambalyo aan isku daro hambalyada aan horeysiiyo waxaan u hambalyeynayaa ciidamadii halkaas reer Sanaag guusha soo hooyay hambalyo waan leeyahay ciid wanaagsan waxaana ka rajaynayaa ilaahay inkuu iyagu kaloo la mid yihiin ay ku daydaan rajo weyn baan ka qabnaa xagga nabadgelyada aan leeyahay inagu ciidsiiyey ilaahay baanu mahad celinaynaa cadowgeenu cadowyo badan bay Puntland leedahay mid gudaha iyo mid xuduudaha ka gudaha waad la socotaan waa nimanka nabadiidka dagaal baa inaga dhaxaya waa ku jira dagaalkooda inaynu nimankaas ka safayno in reer Puntland askar ay galaan aatan kuwa buuraha iyo meelaha jooga waaba sheeganaynaa way sognahay laakiin kuwa magaalooyinka ku jira dagaalkooda sidii ay noola dagaalami jiray in loola dagaalamo baan soo jeedinaya waxa kale oo jira mid xuduudaha dhulkeennii waa la haystaa Sanaag baa u dambeysay waa taa la soo galay sool baa ka horeysay isagoo halkaa jooga Muuse Biixi wuxuu leeyahay nabadgelyo baan rabaa nabad baan qaatay taas waxaan qabaa anigu reer barigu waxay dhan aan la tahay
inta uu ku jiro dalkeenna oo Puntland dalkeeda ku jiro alla tahay baan leeyahay ma dhacayso nabadii mana suurtoobayso waxaan leenahay xuduudaadii tag haddaad nabad doonayso nabad waa rabnaa weligeeyana waa rabnaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh